eagle-ka xayawaanka loo yiraahdo ama haadka ama dafaha xikmad badan ayaa ku jirta noloshiisa inaan ka faa'iideysano u baahan. Cashirka koowaad, eagles fly alone. Mar walba haadku wuxuu jecel yahay inuu keligii socdo oo cirka meesha ugu sareysana gaaro. haadku ma jecla inuu la biibo shimbiraha kale sida tukaha. macnaheeda waxa waaye stay, macnaheeda waxa waaye ka fogow dadka maskaxda yar sida tukaha iyo waxyaabaha yararka oo hoos ku dhigi kara. haadku wuxuu la duulaa haad kale, haadba haad kici si uu maskaxdiisu iyo la joogiisu u wanaagsanaado. Cashirka labaad, haadku waxa uu jeedaa si sax ah ayuu wax u arkaa, ujeedadiisana wuu ogyahay. haadku wuxuu leeyahay aragti aad u dheer ilaa iyo 5 kilomitir. wax walba oo ka soo horjeestana ma uu sugayay, wuu soo dafayaa ilaa uu ka dafana ma joogsado. macnaheeda waxa waaye inaad yeelato aragti dheer ood ku taagnaato aragtidaas. wax walba oo ka hor imaado oo carqalad ahna aadan u joojisin ilaa aad ka gaarto horumar. macnahaas laga wadaa. cashirka saddexaad oo laga baranayo haadka waxa weeye haadku ma cuno xayawaan dhintay ee wuu dishaa. haadku mar walba waxa uu cunaa xayawaan fresh ah oo asagu gacmihiisa ku dishay. wax dhintay baqtiga ma cuno. macnaheeda waxa waaye ha ku kalsoonaanin noloshaadana ha ku halaynin waxyaaba la soo dhaafay. waxaad u socotaa horay, waxyaaba cusubna qabso. wixii la soo dhaafay meeshoodii ha joogaan, ha ka soo qaadin. cashirka afaraad, haadku wuxuu u jecel yahay duruufaha sida daruuraha inuu koro, inuu exercise sameeyo. marka uu dabeesha arko ayuu la soo degaa. daruurtana wuxuu jecel yahay inuu ka kormaro. haadkuba daruuraha ma seexdo, wuu ka soo degaa. macnaheedu waxa waaye si aad u gaarto horumar ha ka cabsanin tartamada ku soo gaaraya oo nolosha ka hor imaw, ha ka sii jeesanin. cashirka shanaad, marka uu haad female uu la kulmayo itixaamo badan ayay gelidaa. macnaheeda waxa waaye private lifekaaga iyo businesskaaga mar walba inaad qof daacada u tahay waa in la ogaadaa. cashirka lixaad, mar walba diyaar wuxuu u yahay haadku inuu tababaro sameeyo. markaasna wuxuu sameeyaa inuu asagu baalihiisa iska rifo oo dabayshana la qabsado oo xanuun badanna ay ku hayso, mana duuli karo. dabaysha baalaha waa inuu wax badan iska rifaa si uu u duulo, culaysay ku haynayaan. macnaheeda waxa waaye comfort zoneka waxa loo yaqaana ka tag. waxyaabaha aad la qabsatay oo maalin walba inaad samayso baratay ka bax ee wax cusub noloshaada kusoo kordhi. maanta dhan ha iska dhex fadhin hal qol, ka soo baxa. cashirka toddobaad, haadku marka uu duqoobo naftiisa ayuu dhaawacyo u geystaa. baalasha ayuu iska rifaa, afka horeu iska jabiyaa, kadibna buurtuu galaa. buurta markuu galana 1 sano ayay ku qaadataa. marmar waa inaan nolosheenna, macnaheedu waxa waaye nolosheenna waa inaan marmar waxyaabo badan oo habit ah oo xunxun oo aad u adag inaan iska dejinno ayaan u baahanaa, oo qiimo badan nolosheenna ku lahayn. and you should be let go, inaad waxyaabo badan noloshaada ka qafiifiso. sidii haadka baalasha iska riftid, waxyaabo badan oo culays oo baggage iska reebtid. sida haddaad dhar tiro badan leedahay ooda isticmaalin, iska dhiib. haddii gurigaagu aad u weyn yahay, guri yar u guur. waxyaaba badanooda u baahnayn noloshaada ayaa jira. mar walba haadka noloshiisa waxaa ku sugan cashiro, cibro badan baa ku sugan. haadka hadduu noloshiisa inta buuraha galay oo 1 sano kusoo jiray oo kadibna soo biibay, waxaa lagu leeyahay haadku wuxuu noolaadaa 70 sano. 40 sano maalinka uu jiro buuraha uu tagaa, afkuu iska jabiyaa, baalashuu iska rifaa. 1 sano ayuu ku jiraa, kadib uu haddana dib usoo biibaa. ama wuxuu doortaa inuu saas xanuunkaas isgaarsiiyo buuraha galo, ama inuu dhinto. xanuunkaas marka uu maro haddana dib uu usoo biibaa. 30 sano kale noolaadaha lagu qiyaasaa. noloshiisuna waa xayawaanada ugu cimriga dheer. 70 sano ayuu gaaraa. 40 mar iyo 30 mar ah. isbedelka noloshu waa muhiim. inaad dib isku soo dhisto, 1 sano qaadato, 2 sano qaadato, dib isku soo habayso. haddii noloshu kaa burburtay ama wax kaa qaldamayn, dib isku soo dhis. ha isdiibin, ha leecin, ha la dadaalo. sida haadka ha la socdo. waa macalinka nolosha, Axmed Isxaaq. haddaad ka hesho videogan subscribe iyo like ii saara. waa mahadsantihiin.